ururkii dhalinyarada aasaaskiisii oo laga joogo 74 sano maanta oo ah runtii maalin weyn aasaaskaas oo runtii idibada u dhigay midnimada Soomaaliyeed iyo qarnimada Soomaaliyeed iyo xorriyadda Soomaaliyeed oo ahaa SYL waxa weeye ururkii siyaasadeed ee soo dedejiyay Soomaaliya ka dhigay wadamadii ugu horeeyay xorriyadda ka qaatay wadamadii gumaysiga waxay ahaayeen ama ay ku gaareen halgankaas inay Soomaali mideeyaan oo ay walaalayaan ay ku keenaan qarannimo ay uga fogaadaan qabiilka iyo qabyaaladda runtii arintaasi iyo halgankaasi ummadda Soomaaliyeed waxay ku soo caana ku heshay ama ku barwaaqay ku jirtay muddo 30 sano ah oo aan caalamka aan ka ahayn wadamada runtii ugu fircoon khaasatan Afrika taasi ay maxaan ku raahdaa ururkaas SYL-ka ah halgankaas ay ka soo gaareen inay ku keenaan xorriyadda waxa weeye maanta way taagan tahay inaan wax badan ka baranno hadduu Ilaahay yiraahdo maxaa yeelay waxay ka tageen qabiil waxay ka tageen xaqdir diineed waxay u soo bambaxeen ama banaanka soo dhigeen wadannimo wax la yiraahdo iyo patriotism taasoo runtii Soomaali mideysay oo walaalaysay oo u samaysay calan iyo qaran adduunka laga ictiraafsan yahay maanta aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeedna waa u hambalyeynaya waxaan leeyahay hambalyo maxaan ku raahdaa ururkii SYL hawshii ay qabteen Allah naxariistii jannadii siiyo 13 dhalinyaro hawshii ay soo qabteen annagana insha Allah waa ku dayareynaa hadduu Ilaahay yiraahdo waa mahadsantiin wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh